hooyo Siraad Faarax Xamuud oo ah hooyada dhashay fanaan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo goordhoweyd warfidiyeenada kula hadlaysay guriga ay ka degan tahay magaalada Boorama ayaa ka warantay weerar arxan darro ah oo ciidamada booliiska gobolka Awdal ay ku soo qaadeen gurigeyga taas oo lagu beegsanay fanaanka sida weyn u hirgalay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha gobolka Awdal hooyada ayaa sharaxaad dheer ka bixisay weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada booliiska gobolka Awdal oo horkacay taliyaha qaybta booliiska gobolkani hooyo Siraad Faarax Xamuud oo arrimahaasi ka warbixinaysa ayaa waxa hadaladeedii kamid ahaa ilaa xilligan wala nahaystaa ciidan bana soo weeraray dhabaxa jood been xalay kulku yimaadeen صح imikana ciidan in ka badan bay ahay marka guriga ma waxa ku sugnaa fanaan Nimcaan Hilaac mise idinka iyo faamiligiisu ba joogay guriga annaga iyo faamiligiisu ba joognay cid kale ma joog صح xabadii la riday un baa nagu soo yaacay si wanaagsan askartu markay guriga idin ku yimaadeen qofkii ugu horeeyay qabteen ayuu ahaa adiga aabihi aabihiisa ay la dhaqmeen daa soo dhaqay gidaarkaas madaxa ku dhintay jiiday soo direys xidhan askariya صح jiidayeen inantii bay qaadeen oo gaariga ku riteen inankii kale qaadeen oo gaariga ku riteen adiga halkii ka ridanayay la dhaceen bud qayladii buu jaarkina ku soo yaacay jaarkina waa kan xabad majaal la isku xaamiyay dawladda iyo dadka ay daawanaya waxaan ka codsanayaa dalka waan u dhalanay halkaan joogno ku dhashay yaa macay waxuma galabsanin yaa deehalana nabad galiyo alla kama baqayaan ay joog nafta ka baxaysa weeyaan ilaahay kama baqayaan joog nafta ka tagta ma sakaraadaan waa musuqa waa khaayanimada waa dhigacafka ay yihiin dadka wada haliilayaan Jaamac Xuseen Jaamac Dude magaalada Boorama